والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta waxaanu idinku yeedhnay inaanu ka hadalno arrimaha socda ee dalka ka socda ee la dhalin-rogayo ayaanu doonaynaa inaanu idinka warramo. haddaan taariikhda dib ugu yar noqdo, Soomaaliya jid baynu ku raacnay berigii hore aan laga fiirsan. waxaynu aqbalnay in caasimaddu xamar noqoto, madaxweynuhu noqdo reer Soomaaliya, Prime Ministerku noqdo reer Soomaaliya, daakhiligu reer Soomaaliya, Foreign Ministerku reer Soomaaliya, muxuu ahaa intaas labada ciidan generaaladu labada ciidan ee generaaladuna inay Soomaaliya noqdaan. waxaasoo dhan baynu aqbalnay oo aynu muxuu ahaa siisanay unitigii Soomaali weyn ee la doonayay. tiimay suuroobin dabeetana dhibaataynu kala kulannay. xabaalihii magaalo walba xabaaluhu way muxuu ahaa way maasgareefisku way ka buuxaan xabaal wadareed. xoolihii 800 sannadood la soo shaqaynayay ee magaalooyinka yiil baa la gurtay oo aan cidina odhan maxaa waa dad muslina iyo waa innaga aan cidina odhan. maanta nasiib darrada u weyna maantay dhahaysataa waxa weeye xukuumadeennii waxay laalaadisay carabkay u laalaadisay sharcigii ina kala xidhayay ayay laashay. baarlamaan aan meedaba aqoonna meeshuu joogaa oo aan waxba ka gilgilan. dabeetana waxaynu meel halisa ayaynu maraynaa. waxa weeyaan Somaliland jiritaankeedu horta afti baa lagu qaaday oo dastuurkaa lagu ansixiyey oo wax 4 qof iyo 5 qof iyo in yaroo is urursataa ay bedeli karta ma. waxa dabeetana aynu leenahay xadkaa wixii ka soo tallaabay ee innaga ahaa ee hore u tallaabay waa in jeelka la geliyaa. wixii muxuu ahaa innaga ee tagaa innaga ma aha, waa dembiile, waa inuu noqdaa siday ahaan jirtay waa in lagu soo celiya. dowladdeeni kolkaa waxay samaysay tasahulaad fara badan ayay samaysay. waxaa la yidhi shirkii London lagu qabtay waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa Soomaaliya isu keenidooda iyo wixii la tari lahaa. waxaynu guclaynu ku tagnay waxaynu aqbalnay waxaynu nidhi waxaynu soo qaadanaynaa qaybteenni kolkaa waxay ka dhigan tahay dadka kale uga dhigan tahay inaynaan ka go'in Soomaaliya aynu yar cadhaysannahay oo waxaan ictiraaf raadintan ay beenta ka sheegayaan waxa weeyaan waxaan jirin. kolkaa dabeet waxaa loo qaatay inaynu qayb un ka nahay muxuu ahaa Soomaaliya. dabeetana shirkii waa tii la bedelay, imaaraadkaa lagu qabtay, kiina waynu tagnay. haddana Turkiga ayaa adduun badan bixinayaa la yidhi, Turkigaynu haddana muxuu ahaa tagnay. waxa dabeetana arrintii saasay u socotay ilaa muxuu ahaa aynu maanta heer aad halis u ah aynu muxuu ahaa joogno. waxa kale oo jira hay-adahan inoo jooga. madaxweynuhu markuu si wanaagsan uga hadlo kii Turkiga wuxuu yidhi waddanka lagu soo diray kan maahee waa kanaanu jaarka nahay, go there and don't come back buu yidhi. Foreign Ministerkeennii baa soo maslaxay, waa ku soo noqday, xafiis baa loo furay, Ingiriisku u furay oo London muxuu ahaa Addis Ababa xafiiskeenu tegi jiray. arrimaheenu waxa haya kaalkan jooga waxa weeyaan waa in la saaraa ragga hay-adaha ku jooga iyo cidda ku joogta magaca Soomaaliya. waayo halkan Soomaaliya lama yidhaa, dhiig baa u daatay, dagaal baa loo galay, waa la xoreeyey. maaha maanta in dowladdeennii ay u carab laalaadiso oo kolba tasahul u samayso oo dabeetana ay inoo riixdo xaggii muxuu ahaa aynu shalayta ka dagaalanay ee aynu ka soo noqonnay. kolkaa waxaan leenahay dowladdu ha aragto inaan dadkani raalli ka ahayn. qolada London waxaan leenahay mudaaharaadka dhigtay waanu idinku raacsannahay, dibadahaynu ka wada samaynaynaa, waynu ku tashanaynaa. Somaliland baynu xoraynaynaa maanta halka xaaladdu taagan tahay. intaasaan kaga baxay anigu.